Thank you, Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen. Peace and Security Council has submitted an outstanding report. mudane gudoomiye Cyril Ramaphosa madaxda kale marwooyin iyo mudanayaal guddiga nabadda iyo amnigu waxa ay soo gudbiyeen warbixin aad u wanaagsan waxaan rabaa inaan adkeeyo inay Soomaaliya tusaale fiican u tahay in qoryaha la dhigo maxaa yeelay haddii ay xasilooni buuxa hesho waxa ay noqon kartaa xarun dhaqaale oo xooggan oo door muhiim ah ka qaadanaysa horumarka qaaradda marka laga fiiriyo kheyraadkeeda goobta istiraatiijiga ah ee ku taalo iyo dadkeeda hal-abuurka ganacsi leh si kastaba ha ahaatee Soomaaliya waxay muddo la dagaalameysay argagixisanimada caalamiga ah iyadoo gacmaha ka xiran xunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya waxa ay xadidaysaa awoodii aan ku heli lahayn hubka lagama maarmaanka u ah in laga adkaado argagixisada kuwaasi oo qaraxyo guryaha lagu sameeyay la beegsado muwaadiniinta aan waxba galabsan iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay iyadoo ay taasi qayb ka tahay qorshaha kala guurka ee amniga Soomaaliya waxa ka go'aanay si buuxda mas'uuliyadda amnigeeda uga la wareegta AMISOM taasina waxay u baahan tahay ciidan qaran oo si fiican u qalabaysan si looga jawaabo halista imaan karta from AMISOM, and this will require a better equipped Somali National Army able to respond. qorshaha kala guurku waxa uu u baahan yahay in la dhimo ciidamada AMISOM laakiin waxaan u baahanahay qorshe cad oo lagu dhisayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed si ay mas'uuliyadda uga la wareegaan AMISOM waxaan mar waliba abaal uga haynaa ciidamada AMISOM sida ay naftooda inoogu hureen dadaalkaasina ma noqon doono hal bacaad lagu lisay qoridhigistu waxa ay mudnaan muhiim ah u leedahay qaaradeena waa inaan sameynaa dadaal kasta si arrintan mudnaanta koowaad loo siiyo heer kasta oo la joogo Afrika waa ay qurxoon tahay waxayna leedahay kheyraad iyo fursad ugu weyn ee horumar marka la barbar dhigo qaaradaha kale dhammaantood sidaasi oo ay tahay ma gaari doono mana xaqiijin doono inaan si buuxda uga faa'iideysano fursadan Afrikaan ahaan haddii aynaan dhigin qoryaha isla markaana aynu ka shaqeyn abuuridda xaaladaha horseedaya horumarka dadkeena mahadsanidin dhammaantiin I thank you.